madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ayaa waxa uu sheegay in wadanka Galmudug uu ku wado madaxweynaha muddaxiliedkiisa oo dhamaaday ee Farmaajo loona baahan yahay in laga qabto. Waxa uu sheegay Axmed Madow in Farmaajo uu muuqdo kursiga kaliya balse uusan u turin dadka Soomaaliyeed. Waxa uu tibaaxay inuu ku dayanayo madaxweynaha Eritrea. Waxa uu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii dalka loo badbaadin lahaa doorasho ay u dhici lahayd. oo 2012 markii ay mas'uuliyadda ku wareegtay iyadoo ay si nabada ku dhacday markii ugu horeysay muddo dheer ee dawladnimo Soomaaliya doorasho intii loo qabtay ay Muqdisho lagu kala wareeganayay sababtoo ah in Bagaati iyo Jabuuti iyo kulligood maynan ahayn Soomaaliya. waxaa soo raacay 2016 oo 4 sano 2012 ka dambeysay ay ahayd 4 sano oo aad u adag. waxaa koow ka ah dhisidda isteydyada heer federaal iyadoo markaa ay dhisnaydo kaliya Puntland inay dhismaan Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. waxay noqotay dhammaystiro hay'adihii isteydyadii rukuumadii nidaamka federaalka ee Soomaaliya. waxaa kabayay oo asaas u ah nidaamka federaalka ee Soomaaliya in la dhiso aqalka sare oo isagu daliil u ah nidaamka federaalka ee Soomaaliya iyo sida uu yahay iyadoo ay laba golo tahay oo midna uu yahay golaha shacabka midna uu yahay aqalka sare golaha sanadka. labada aqal oo la yaqaan shaqadooda wada shaqayntooda iyo waxa ka dhaxeeya iyadoo ay jiraan wali waxyaalo dhindhiban inay jiraan haddana waxay ahayd dhammaystirka nidaamka federaalka ah. markaan halkaa ku noqdo 2016 doorashadii dhacday ee nidaamka federaalka ah 4 sano teeramkeedu lagu kala dhawaanayay waxaa hagayay golo la odhan jiray NLF ama National Leaders Forum, golaha wadatashiga qaranka, golaha hogaaminta qaranka. councilkaas NLF-ka ah wuxuu ahaa mid joogto ah oo shirarkiisu ay mar walba u dhacaan si isdaba jooga. waxaan rabaa inaan xusuusiyo xilligaas oo ahaa xilli adag dowladda kala guurkeedu uu waqti xaalad adag marayay. markii la qaatay doorashadii nooceen galaabaa la yidhi waxaa la yidhi doorasho toosa ma geli karo oo hal qof iyo hal cod oo midda dastuurka ku qorana. maxaa inoo diidaya? waxaa inoo diidaya asbaabo badan. kow, dastuurkii ma dhammaystirna oo dhammaystirka dastuurka maxaa sabab u noqonaya? waxaa sabab u noqonaysa weli dhiban arrinta Somaliland in xal laga gaadho. dadkii lama tira koobin oo hafti lama qaadin oo maxay sabab u tahay? haddii dadka la tira koobo oo hafti laga qaado waxaa suurto galaysa markaa 4.5 in laga tago doorasho axsaaba la galo wadankuna uu noqdo markaa doorashadii dastuurka ku qorayd in la galo. taa miyay suurtagal noqonaysaa? maya. waxaa la yidhi wadankii shabaab baa haysta. kow, tirakoob lama samaynin. laba, axsaab iyo 4.5 lagama guuri karo sababtoo waad ogtihiin 4.5 in laga guuro waqtiga ay naga qaadatay. taasaa waxay keentay markaa in la qaato doorashadii magaca qaadatay doorasho dadban. doorashada dadbani caqabadaheeday lahayd. waxay keentay maalintii shirka doorashada dadban aanu qaadanay iyo ilaa inta doorashada u dhacaysay 13 shir baa la isugu yimid oo lagaga hadlayay maalin walba khalad yar oo soo baxa ama khilaaf yar oo yimaada in la xalliyo. sababtoo waxaa la arkayay haddii khilaafka yar aan la xallinin inuu wax weyn noqonayo dhibaatadiisuna ay sii badnaanayso. waan ka soo tagnay sidaasay ku dhacday doorashadii 8 February 2017. waxaa raad u ahaa oo la isweydiiyey xilliyadaas xukuumadda teeramkeedii wuu dhammaaday aqalada waqtigii loogu talagalana processka dheeraaday oo guddiga doorashooyinka iyo National Leaders Forumkii yaa waxay isla qaateen inay waqtigii guddiga doorashooyinka ay soo keeneen inayna ku soconayn. waxay keentay markaa in madaxweynihii xilligaa joogay Xasan Sheekh Maxamuud ahaa uu qoro warqad odhanaysa hay'adaha dastuuriga ahaa ee madaxweynuhu koow u yahay inuu teeramkoodii dhammaaday wadankuna doorasho aado. awoodihii madaxweynuhu uu lahaana ee magacaabista iyo casilaadda iyo waxaasoo dhan inuu intuu la hooldhigareeyo la yidhaahdo doorashaha la aado si aan takrifal awoodeed ayna doorashada gudaheeda uga dhicin. taa waxaan u soo maray. waxaa la yidhaha taariikhdu waxay leedahay cibro in laga cibro qaato. waxaan u soo maray waxay ahayd inaan ogaano waxa aan soo maray. doorashadii dhacday waad ogeydeen waxay ahayd doorasho dowlad goboleedyadu ay xarumahooda ka soo bilaabatay. waxaan garanayaa halkaan aan joognaan kula dardaaran xildhibaanadii ka soo baxay
ereygan ku yidhi wuxuu ahaa damiirkiina wax ku doorta, soomaalinimada ilaaliya, wadajirka ilaaliya, ciddaad xal u aragtaan iyo maslaxaha la doorto. golihii la isugu yimid waxaa ku soo baxay maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa labada garab qabtay oo labada gacmood la garab istaagay madaxweynihii isaga ku wareejiyey xilka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii ugu horreeyey ee siyaasadda ku soo daray oo ahaa shariif sheekh axmed oo ra-iisul wasaaraha ka dhigay, oo labaduba ay aada hamuum ugu qabeen inay kuraastaas nasiibkoodu siiyo. laakiin waxay noqotay in gacmaha la qabto oo loo baarakeeyo. waan garanaynaa markaa rajada dadka soomaaliyeed xilligaasi waxay ahayd waddanku inuu dhaqaaqay, isbeddelka noocaa u dhacaya ee xamarka dhacaya iyo garbaha la isqabanayo iyo si la isu taagayo soomaali macnahay u samaynaysayba qof waliba dareemayo. 2017 bilowgeed laga soo bilaabo ilaa waqtigan waxaan odhan karaa waxaa lagu jiray uun war maxaa la qabtaa, maxaa inoo qabsoomay. xilligaa iyadaa waxaa laga hadlayey in shabaabka laga xoreeyo deegaanada inta maqan, in dowladda soo socota ay gaadhsiisa 1 qof iyo 1 cod, oo maxay tahay dhammaystirka dastuurka, xoreynta deegaanada ee shabaabka, tirakoobka dadweynaha 4.5 oo laga gudbo, axsaab loo gudbo, 1 qof iyo 1 ay dhacdo. taasay ahayd waxaa dowladda laga sugayey. jawaabta intaasi ma dhacday mise mayna dhicin, dadweynaha ka jawaabi doona, idinkaa yeelan doona jawaabteeda. waxaan samaynay oo la isugu yimid gole amniga qaranka la yidhaahdo, doodo badan baan galay. waxaad ogtihiin dhuusamareeb 1 jiitan badan iyo xaaladdu nooca ay ku soo dhowaatay markaan fiirinay inaan isweydiinay wareedhe waddanku seebu ku socdaa, maan isugu nimaadna talo. dhuusamareeb 1 waxaa abaabulay isteydyadii inay isu yimaadaan, waanu isu nimid. waxaa nagu soo biiray dhuusamareeb 2 madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii xilligaa joogay. taasaa waxay keentay markaa inaanu u ballanno dhuusamareeb 3 oo aan isla qaadanay xilligaas inaan waddanka extensionna uuna geli karin oo muddo kororsi ayna dhici karaynin, doorasho qof iyo codana ay adkaanayso, ee wixii inoo cuntabaya aynu qaadanno. lama wada imanin dhuusamareeb 3. waxaa nimid muqdisho ayaanu isugu nimid oo lagu shirkaas sebtembar ahaa oo aan u hormaray anigii madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni oo ka maqnay dhuusamareeb 3. dooda shirkuna ay ahayd waddanka xaaladiisa aynu isweydiino meesha ay marayso. waxay sababtay inaanu ku heshiino shirka 17 Sebtembar oo ah in la qaatay 14 qodob ee shirkaa ka soo baxday inayna dhici karaynin wax la yidhaahdo doorasho toosa, inayna dhici karayn anoo asbaabtii aan sheegay ay jirto. axsaabtii ayna dhici karaynin, meelihii aan la mari karaynin, wareegaasi uu dhibkiisa keenayo, intaasoo dhan baan isla sheegnay inayna dhici karayn markaa in ay dhacdo in la qabto doorasho toosa. waayo 2016 bay rajadu ka fiicnayd oo ay ka hagaagsanayd sida ay ahayd hadda 2020 ay ku socotay. maxaa sababtu tahay? waad garanaysaan 2016 waddanka inta isu furayd. waxaan garanayaa xildhibaanada jawhar u socday habeennimo intay ka dhaqaaqaan muqdisho ay jawhar tagaan lug ay ku soo noqdaan haddana inay kaambeynkooda ku jireen. laakiin maanta ay ka adkaatay oo iska daa deegaano la xoreeye shabaab dhulkii in laga banneeyee ay noqotay in wax badan la waayo magaalada muqdisho iyo deegaanadii kale culayska shabaab ka qabsaday. midaasaa keentay 17 Sebtembar ama 17 Sebtembar inaanu ku heshiino doorasho dadban inay waddanka ka dhacdo oo ayna saamixi karaynin doorasho toosa, axsaab la galo, qof iyo cod la bixiyo. doorashadaas aan ku jiray waxaanu isku qabannay nooca deegaanada loo qaybinayo kuraasta. waxay keentay qaybinta kuraastu inay keento caqabado. si aad u ogtihiin markii aan ka soo noqday muqdisho ee aan imid halkan, waxyaalaha aan cabashada ka gudbiyey waxay ahayd markii aan golaha baarlamaanka ee Jubbaland la hadlayey 26 Oktoobar. waxaan kala hadlay waxay ahayd nooca loo qaybiyey kuraasta doorashooyinka Jubbaland iyo cabashada aan ka qabno oo ahayd in stateka loo daayay. haddaan loo daynaynina nooca loo qaybiyey ee kuraasta gado iyo oo la wada geeyey oonu arkayna inay dareen kale ku jiro, cabasho aan ka gudbinay baan golaha baarlamaanka aan hortiisa uga sheegay.
وصدق بري مركي أن شوقي مقالة كسماية الحمر كوساس حين هشيسكي cabashadaasi way taagnayd ma ahayn waxaan shalay bilaabay mana ahayn waxaan ka horreysiyay waxay ahayd gobolka Gado iyo Garbaare iyo Kismaayo kuraasta inuu state-ku ku fiican yahay in loo waxeeyo hadday noqonayso in doorashada ay labada meelood ka dhacaysana in state-ka sida deegaanada kale ay u noqoto in xal looga gaaro gobolka Gado maanta isweydiin mayna caqabadaha ka dhacaya mushkiladaha waxay dhaxleen reer Gado qori iyo rasaas iyo colaad iyo shabaab iyo dhibaato dhexdooda la dhigo inay mushkilada noqotay oo Jubbaland maamulkeedina ciriiri badan uu ka galo reegadana waxa loo geystay dhibaato aan wada garanayno aadogtiin sanado badan deegaankii shabaabka xorta ka ahaa maanta 70 kiiloomitir luuq iyo doola u dhaxaysa saddex deegaan oo shabaabka xukumaan baa u dhaxaysa awal habeenimo sidii la doono loo soconayay reegado oo in badan ka hadlaynay cabashada iyo dhibka dadka loo geystay waxa la lagu sameeyo ama Jubbaland interferka dawladdu ay ku hayso ay ahayd qodob aan xilligaas ka hadlaynay ilaa maantana jira taas waxay keentay markaa cabashada aan xilligaas soo gudbinay iyo gudiyadii doorashooyinka oo cabasho laga muujiyay iyo arrinta Soomaaliland saddexda qodob oo taagnayd January baan tagnay ilaa February aan ku gaadhnay inaanu kaga hadlaynay inta codsanaynay oo dalbanaynay oo lahayn waxaan u baahanahay shir la qabto oo la isu yimaado waxaa nasiib darro ahayd madaxda qaranku madaxweynuhu ugu horeeyay inay ka dhaga adeegeen in shir la isugu yimaado iyadoo sidaan idiin sheegayay markaanu 2016 ku heshiinay iyo doorashada 13 shir ay u dhaxeeyeen 5 bilood baa u dhaxaysay inta aan cabashada lahayn aan isu nimaadno concern baan qabnaa annagu weliba Jubbaland arrinta Gado iyo sida loo maamulayo cabashaan ka qabnaa meelo kalena cabasho ay ka jirto inaan intaa hadlayno oo lahayn waxaan u baahanahay shir la isugu yimaado waad garan kartaa markaa muddada intaa la shir la'aanta dhacday ee waxa jiray shirkii aanu ku yeelanay Dhuusamareeb 4 ahaa waxa Ilaahay qadaray iyadoo aan dhibaato badan tirsanayno dhexdhexaadin la galay nimankii mas'uuliyiinta ay dowlad goboleedyada ay culays badan la saareen inaanu ku heshiinay in doorashadii la qabto arrimihii aan isku haynana aan xal ka gaadhnay 5tii bisha markii madaxweynuhu ogaaday in berri oo kale la saxeexayo heshiiskii aroortii wuxuu shir ma dhacaya caawa waana lagu kala tagayaa waqti kale la soo noqonaya waataad ogeydeen uu dubba habeen bar qayriyay saddexdii habeennimo ee uu sheegay shirkii inuu soo xidhmay iyadoo markaa aanu sugaynay in la isu yimaado oo shirkii wixii loogu talagalay lagu heshiiyo waxay noo cadaysay midaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna qasad ka lahayn in heshiis la gaadho waxa uu socdana mar walba uu ka hadlayay inay dhageystaan sababtoo haddii uu rabo in wuxuu sideeda u dhacdo kulamo badan baa dhici lahaa waa la isu iman lahaa waa la wada hadli lahaa waxbaa dhammaysmi lahaa marka uu sidaa u tagayo madaxweynuhu waa 5tii February 7 February-na termkiisa ku ekaa ma jirin heshiis siyaasadeed oo u ogolaanayo inuu sii joogo waqtigu 4 sano ahaa xasiloonida iyo stability-ga waddanku waxay ku xidhnayd doorashada waqtigeedii loogu talagalay inay dhacayso damac badan baa jiro dad badan oo mas'uuliyiin ah damac ka qabay taasaa markaa waxay keentay in madaxweynuhu baarlamaanka yimaado ma ayna u suurtagelin madaxweynuhu ereygii baarlamaanka la rabay inuu ku yidhaahdo laakiin waxay noqotay inuu wuxuu sheegay garan waayo oo gacmaha taagtaago taasina ay macnaheedu noqoto dantii aan u soo tagay dan aan ahayn baa meesha ka soo baxay intaa ka bacdi waxaa dhacay inaan dalbanay halaysu yimaado waddankaana hala badbaadiyo sidaanu ku socdana sax maaha teeramka hay-adaha dowladda ee dhammaadayna inay sidaas heshiis siyaasadeed la-aantood ku dhammaadaan inayna sharci ahayn oo sax ahayn waxaa dhacday niman mas-uuliyiina markii waqtigu dhammaaday 8 February kadib 19 February oo ay ka mid yihiin labadii madaxweyne ee madaxweynaha garbaha ka taagnaa markii la doortay 8 February 2017 oo ka mid ahaa ra'iisul wasaarihiisii ugu dambeeyay oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii baarlamaankii hore Sheekh Shariif Xasan Sheekh Aadan inay yiraahdaan waxaan rabnaa banaanbax iyagoo sidii xortii ulamadow aan wax qoryo ah wadin oo gacmaha taagtaagay amarka la bixiyay wuxuu ahaa in la soo afjaro 19 February wixii dhacay wuxuu ahaa wax aad iyo aad looga xumaado arrin nabadeed banaanbax nabadeed mas'uuliyiin ay leedahay war banaanbax waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal oo madax bannaan in la yiraahdo la weeraro oo qoryo loo qaato waxay ahayd arrin aad iyo aad u adag
oo culayskeedana leh dhibaatadeedana iska leh taasay ahayd arrintaa iyadaa waxay abuuraysay oo keenaysay oo mar walba ay keenaysay cuqdad iyo hurgumo ay muujisay waxa meesha ka dhacayaa waxa uu yahay taa waxaanu ku nidhi marka waxaan u baahannahay shir inaan muqdisho isugu nimaadno waayo muqdisho waa xaruntii waddanka laba waxaan u baahannahay amniga doorashada in mas-uuliyaddiisa la qaado middaasaa waxay sababtay kalsooni darrada taalla iyo rag wixii ku dhacay inay noqoto inaannu isugu nimaadno xamar oo aan degno xalane waxaan joogay muddo 40 beri 3 beri baa ka dhinay 37 maalmood ayaan joognay magaalada muqdisho shirkaasoo mar walba ka hadlaynay goobta shirku ka dhacaya inay kalsooni ku dhacdo dadka isu imanaya in la yaqaano shirku wuxuu ku dhammaanaya in la yaqaano waxaa tusaaleedii ku filan kalsooni darradu meeshay gaadhay allaha u naxariistay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed markii aaskiisa la keenay janaasadii in lagu tukado way adkaatay waxaa lagu heshiin waayey garoonka ciidanka joogayay siday noqonayso taasi waxay abuurtay oy dhashay in haddii taayir uu qarxo dad badan iyo dhibaato badan ay meesha ka dhici lahay taana ay keentay kalsooni darrada waddanku maanta meesha uu gaadhay iyo meesha uu marayo wax dheer oo sugayna kabacdi waxaa nala soo xidhiiray beesha caalamka oo nagala hadashay shir in la isugu yimaado waxaan ku nidhi annagu shir baan u fadhinaa aniga iyo madaxweynaha puntland waxaan u nimid shir waxaanan sugaynaa inta xal soomaaliyeed la gaadhayo sababtoo waxaan rabnaa inaan ka howlgalno doorashooyinka iyo wakhtigoodii waxaa soo raaca sebtembar yaan waxaan u diray february 15keedii baydhabo guddi technicala oo aan ugu talagalnay inay guddigaas bal soo dhoweeyaan waxaan shirka isula iman lahay guddidii 16kii markii heshiis go-aano ay soo dhoweysay iyagu heshiis ma lahayna barboskoodii ay keeneen waxaa soo raacay wuxuu 19kii oo la iman lahaa wixii ka dhacay daljirka daahsoon iyo weerarkii dhacay ayaa wuxuu ahaa caqabad iyo dhibaato uu geystay madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxay ku soo ururiyeen in la yidhaahdo beesha caalamka ay sukaana keento annaga iyo isteydyadii 5 isteyd aan isu nimaadno oo aan ku shirno goobtii aan ka deganayn xalane ama airportka agtiisa taasoo qaadatay 3 maalmood inaanu ka wada shirayno waxaanu ka hadlayna waxaa kow ka ahayd kalsooni in la dhiso maxay tahay kalsoonidu shirka markaan ka hadalno amnigiisa iyo meesha uu ka dhacayo oon ku heshiinay waxaanu ku heshiinay in shirka ay ka soo qayb galaan dadka soomaaliyeed ee talada wax ku leh oo ay mudan tahay inay ra'yigooda dhiibtaan waayo dadkaasi waxaa ka mida midowda musharaxiinta waxaa ka mida bulshada rayadka waxaa ka mida ururada haweenka waxaa ka mida dadkii saxaayaasha ahaa ee heshiiska ku jiray waxaa ka mida beesha caalamka iyo inay iyaduna ay dhegaysi u ahaato iyaduna goobjoog ka noqoto in shirka intaa la isugu yimaado dadku ay nala taliyaan ilaa waqtigii uu dhammaaday inay dadku tala soo jeediyaan taladooda ay noqoto markaa waxaasaa nala quman kabacdina annagu aanu fadhiisanno talada ayna siinayaan inay noqoto markaa waddanku meesha uu jiro siday noqonayso waxaa ka mid ahayd in nimankii midowda musharaxiinta oo tirsanaya caqabado iyo dhibaato loo geystay inay sheegtaan cabashadooda ajandahana lagu soo daro inaan ka wada hadalno waana hadalka aada loo warwareejinayo hay-adaha dowladda ee xilligoodu dhammaaday roolkoodu muxuu yahay saaxiibaday waxay yidhaahdeen way adag tahay arrintaas nimankaa musharaxiintaana kama soo qaybgeli karaan iyo cid kale toona innaga sideedeen aanu isu nimaadno ajandahana laguma dari karo hay-adaha dastuuriga ee xilligoodu dhammaado kala tag kadib waxay noqotay inaan shirkii hoolkii xalano la isugu kaayo keeno iyadoo uu ra'yi ka iman waayey madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo cid kale toona inay beesha caalamku isu kaayo keento oan xalano isugu tagno oo ku wada hadalno oan ka heshiino markaa dadka shirka ka soo qaybgelaya iyo ajandaha aynu ka wada hadalno 3 maalmood baan u fadhinay waxaan ku nidhi principally waan rabnaa 17 September heshiiskii ah in la fuliyo waxaan rabnaa in dib loo fiiriyo heshiiskii barabooskii ama soo jeedintii guddiga farsamada ay soo jeediyeen February 16keedii baydhabo inaan tixgelino laakiin waxaan rabnaa si intaasi ay u dhacdo inaan kalsooni abuurno oo shirkana dadkaasi ay ka soo qayb galaan hay-adaha dowladda ee sharcigoodu dhammaadayna aan isweydiino roolkoodu waxa uu waxaa xusid mudan markaa 2016 warqadii uu qoray madaxweyne xasan sheekh
iyo hay-adaha dastuuriga qaabka loo kala awoodaha sida loo dhigay waayo waxaan ka cararaynaa waxay ahayd wixii dhacay 19 February oo kale inay dhacdo oo ay noqoto in dawladdu ciidanka loo isticmaalo sida loo isticmaalay 19 February oo ay noqoto in doorashadana lagu jijuubo laguna shubto dadkana lagu xidho laguna caburiyo taasina ay keeni karto isku dhac qabiil deegaan bulsho siyaasadeed iyo wadanka oo ka leexda wadadii uu jiray taas markaa waxay wax aan ka duuleynay haddaba arrinta inaan ka hadalno hay'adaha dastuuriga waqtigooda dhamaaday saad ogtiin laba aqal baa jira labada aqal December bay ku ekeed waqtigooda shaqo kasta oo la qabanayo wadankan heshiiska siyaasadda asala iyagoo waqtigoodii dhamaaday in haddana go'aano la qaato qaraarada la qaatay wax sharci ah ma aha ciidankii dawladda ee qaranka oo ahaa ciidan u abuuraa difaaca dal shabaab la dagaalankiisa iyo wadanka inay dadka u sinaadaan waxay noqdeen kuwa loo isticmaalayo in dadka lagu caburiyo lagu laayo loo isticmaalo bilaa calaykum aan idin weydiiya maanta hal tuulo oo Soomaaliya ka mid ah oo 4 sano la soo dhaafnay shabaab laga xoreeyay ma jirta bal waxaa loo kana shabaab loo shaqeeyo oo dhulkii shabaabka laga xoreeyay oo dhan maanta kulli iyaga ka talinaya shacabkii baa lagu caburinaya waxa la leeyahay ciidamada magac loo sameeyay dadka kaliya lagu xayo waxa idinku filan waxa gada maalin diyaaradaha lagu daldalayo kuwa shabaabka dagaalka ku jira rasaasta xataa loo soo qaadi lahayn waa arrin aad iyo aad u waxaysan waxaan rabaa inaan idin sheego marka anagu waxaan idhi aan ku dhaqanna dastuurka teeramka waa la yaqaan hay'adaha dawladda waxaan ka hadlaynana waxay ahayd awoodda madaxweynuhu uu isticmaalayo ee hay'adaha amniga loo isticmaalayo ciidan hala kala diro xasha sababtoo ciidanku waa ilaaliyayaal sharciga laakiin waxaan rabnaa ciidanku inaan loo isticmaalin burburinta wadanka iyo dhibaato inay geystaan ciidanka ay noqoto inay noqdaan dad u taagan hagidda amniga iyo ka shaqaynta nabadgelyada dadka iyo la dagaalanka shabaab haddii laakiin ciidankii uu noqdo hay-ado waqtigooda dhamaaday inta isticmaalaan in qaabkaa iyo qaabkaa la yidhaahday waa wax khaldan waxaa kaloo khalad idinku filan maadheed waxaa la yidhi baarlamaan baa fadhiistay golaha shacabka aqalka hoose waxay ansixiyeen waxay yidhaahdeen 17 Sebtembar heshiiskii waan laalay waxaan soo celinay hay-addii doorashooyinka qaranka xalimeeyanay 2 sano rabnaa in wadanka lagu sameeyo horta waa su'aal ee sharciyada ay baarlamaanku leeyihiin ay ku fadhiyaan waateen ay sharciga noocaas ku ansixinayaan waa lambarka labaad ee laba aqal bay ahaayeen markaan 17 Sebtembar gaadhnay cabdi xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoon labada baarlamaan baa saxay heshiisay labada aqal gaadheen buu ahaa maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaadhayo keligii waa maxay xagee buu jira xagee buu ka imanaya ma u leeyahay awood markaan ka hadalno guddiga doorashooyinka lala hadlayo loo yeedhayo xalimeeyanay teeramkeedu wuu dhammaaday mandatekooduna lama cusboonaysiin karayo wuxuu hadday la jiifiyaano bannaanta waa masiibo kale maanta madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo hay-adaha uu camcamiska ku watahay Soomaaliya god bay ku ridayaan haddaan maanta la iska qabanna wadankan dib uu noqonaya meel kale u tagaya ummad walibana waxaa waajibka inay tashato isweydiiso xagee loo socdaa maxay tahay waxaa nala gudboon maanta in shabaab wadankii loo wada dhuuleeyo oo dadkii la burburiyo oo hay-adihii dowladda saa loo galo oo maanta aad ogtihiin magaalada Muqdisho maxay faa'iideen Muqdisho maanta in jidadkiina laga wada xidho habeen walba cabsiya ay ku jiraan dadka in dhibkaa loo geysto dulqaadka ay muujiyaan reer Muqdisho waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar saddexaadba aan uga mahad celiyo iyagoo garanaya wixii shalay la soo maray maanta laakiin wax kasta oo ka yimaada wax lagu khasbay sababta waxa loo geysanayaa waa dhibaato aad u badan doorasho sharaf leh oo xor iyo xalaal ah shalay ku yimid madaxweynaha xilligiisu dhawaaday Farmaajo maantana waxa uu geysanayaa waa midda boobka ee sharci darrada ee hay'adihii dastuuriga aqalkiisana uu iska tago oo uu yiri aqalkii hoose waqtigiisu dhawaaday sharcigan ii sameeyo oo uu diiday dictatorship xilliga jooga oo daciifa oo tabarteedii lahayn inaan maanta meelo kale intaan ku dayaninaano afarqaan lahagayo 30 sano sida afarqo haystaan ku haysanaya oo waxa aad looga xumaado waxaan rabaa reer Jubbaland iyo Soomaaliya inaan u sheego war hala tashado meesha wadankan uu ku socdo waa god madow madaxweynahan xilligiisu dhamaaday kaliya kursiga oo muuqda wax kale oo dan kaliya ma jirto waxa la xaganayay dhibaatada uu ka hadlayo dhan waxba kama jiraan Soomaaliya waxa la dhahaa dib ay soo weydiiso wax garadkeeda iyo cuqaasheeda idinka idinta la reer Jubbaland wax garadkiina caawa Kismaayo waad fadhidaan
waxaad ka tashataan oo isweydiisaan waxa meesha idinkaga soo socday iima muuqata natiijo. islaamba waxay tiri wiilkooda xanuunsanayay tiri indhihii kuwii hore meeshay mari jireen oo kale u maraya, macnaheedu waxa weeyaan kuwa horea ka dhiman jiray. markaa waan aqaanaabay tiri xilliga sidan oo kale markay noqoto. waxaan aada quus uga taagnahay nooca jira iyo waxa la samaynayo iyo ciidankii loogu talagalay sugidda amniga iyo dadka inay udhexeeyaan waxa loo isticmaalayo iyo waddanku meesha ku dhacayo oo wax aada u waxaysan. aan isku tashanno, talooyin badan baan geli doonaa, shirar badan baan isugu iman doonaa, dadka ra'yi baa la weydiin doonaa. waxa aan maanta ku suganahay laakiin waa xaalad adag oo aada looga xumaado, oon isleeyahay dhibaato iyo mushkilad badan bay abuuri doontaa, oo aan Soomaaliya ayna meesha ay maanta laga sugayo meel kasii adaga gaari doonto. sidaa daraaddeed kor iyo hoos waan idinku celinayaa, waddankaani hadduuna doorasho gelin oo hay-adaha dowlad dastuuriga xilligoodu dhammaaday ayna garanin waxa ay yihiin, oo aan loo noqonin wixii shalay lagu kala baxay se iyagu ku yimaadeen 2017 ayna garanin, shalay iyagu ku yimaadeen waddadii ayna qaadin. dee waddanka waynu naqaanaa siduu ahaa iyo wuxuu ahaa. waan ku talagelaynaa inaan doorashana u diyaar garowno, difaacannagana aan adkaysanno, shabaabna aan la dagaalanno. waxaan rabaa inaan u soo jeediyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed. ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaa loo dhisay ilaalinta sharciga, la dagaalanka argagixisada, sugidda amniga gudaha iyo midka dibaddaba, laakiin looma dhisin in dadka lagu burburiyo, lagu caburiyo, lagu cunaqabateeyo. saraakiisha ciidamadu ha ka fiirsadeen tallaabooyinka ay ku dhaqaaqayaan iyo amarada guracan ee la siinayo ee la leeyahay sidaa iyo sidaa yeela. waxaan aada uga nin la yidhaha Jamaal Saadiq John oo hadlayay, yani ereygu ka hadlayay wuxuu ahaa wixii la ii dhisay mayna ahayn sidaasi. waxay ahayd arrin aada iyo aada u waxaysan. yani waa qofka ugu dhow waa la isticmaalay, laakiin maxaa u soo baxday nooca dowladnimada ay ku socotay inayna ahayn wax sax. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay saraakiisha kalena dib u noqda, meeshaad joogtaan waddankiina u taliya, dadkiina u tura, dareenkiina qaata. aada iyo aad baad u mahadsantihiin. waan rajaynayaa inaan shirar dambana qaban doono. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat